السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم صل وسلم وزد وبارك عليه وبعد. walaalyaal, arrin yar oo runtii xanuun leh iyo mid ku xigta oo farxad leh ayaa waxaan rabaa inaan dul saaro hal xadiisa oo saxiixa oo aan hubo kana hubo afka udgoon ee xabiibkeena sala allahu calayhi wasallam oo uu noo warinayo imaamu albukhaari raximahullah. waxaad ogsoontihiin ilaahay in uu inaga reebay idaylkeen shayga la yidhaahdo dulmiga ama gardarrada ama xaqa walaalkaa oo aad qaadatid, inaad walaalkaa ku dhacdid afkaaga ama aad ku dhacdid maxkamad iyo inaad ku dhacdid. ilaahay wuu naga reebay, mar walba ilaahay wuu naga reebay arrinkaa isaga ah. xabiibkeenu wuxuu leeyahay sala allahu calayhi wasallam oo ah ninka ugu caadilsan khalaa'iqda ilaahay ayaa wuxuu leeyahay faman qadaytu lahu bixaqi muslimin fainnamaa hiya qitcatun min annaar falya'khudhaa aw liyadachaa. bukhaari baa warinaya raximahullah, waana xadiis saxiixa. qofkan u gooyo intuu waraaqa ii keensada, labaa is haysata way ii imanayaan. mid baa xaqa leh oo xoolaha iska leh laakiin ma goosan karo, caddayn uma haysto, sabar looga ilaysin uma haysto. ka kale waa daalim, gardaran, dhacaya walaalkii, laakiin caddaymuu sitaa been ah. annagana waxaan goynaa waa maxay? ciddii caddayn wadata, maxaa yeelay daahirkaannu xukunnaa, laakiin saraa'irta iyo waxa qarsoon ee qaybka ilaahay baa xukuma. laakiin dardaaran buu raacinayaa xabiibka, labadan isdhacaysa salawaatullahi wasalaamu calayhi. faman qadaytu lahu bixaqi muslimin, warkaan u gooya xaqa walaalkiiyow oo aan gardarro wax ku siiyow, kaa walaalkii dhacaya fainnamaa hiya qitcatun min annaar, waxaan kuu gooyo waa gardarro, waa gabal cadaab ah. kumaanan goynin dhul, kumaanan goynin xoolo, kumaanan goynin balood iyo wax kale. waxa aad qaadatay waa dhimbil dab ah. falya'khudhaa aw liyadachaa, ama hadduu shaqi dhur darsaday oo ayaan daran uu yahayna ha qaato dhimbisha cadaabka ah. adduunna ha ku gubta, aakhirana ha ku cadaab galo, ama ha isaga taga hadduu saciid yahay, ilaahay u aqoonsan yahay. waxaan sidaa u dhahayaa walaalayaal, intaanan salaadda soo aadin casar maanta ayaa qof waxa uu ila wadaagay qiso yaro xanuuna. wuxuu yidhi, wuxuu ii soo qoray, sheekhow, gabar baa i dhacday, wayna dhimatay, xoolahaygii in badan bay dhacdo, wayna geeriyootay, maxaan sameeyaa? waxaan u qoray, hadday maanta dhimatay iska cafi walaashaa, ilaahayna wax ka khayr badan waxay kaa dhacday ha kuugu beddelee. markiiba waxay ii soo qortay, haye sheekh, waan cafiyey, ii soo ducee. waan wacay gabadhii marka si aan u hubsadaa arrinkii wuxuu yahay. maxaa yeelay dhacdadan way soo noqnoqotaa in badanoo idinkaa laga yaabaa in laydin dhacay, ama aad wax dhacdeen, ama aad ogsoon tihiin cid walaalkii dhacay. dardaaran haynoo ahaada arrinkan iyo xadiiskaanan ku khatimi doono hadduu ilaahay idmo. waxay tidhi, laba dukaan bay lahayd, 15 sano ugu yaraan waa isnaqaanay, waa wada ganacsanaynay. laakiin barashadeedii ayaa isirtay. way ii timid maalinba, waxay tidhi, waxaan rabaa xoolaa layga dhacayaa, dukaamaa layga dhacayaa iyo guri aan gatay, walaalay 3 milyan isii. tusaale ahaan ma aanan haynina waa u naxay walaashay 15 sano maadaama aan garanayey. si boobsiisaan 2 milyan oo ahaayey iyo 200 baan u siiye hoobaan idhi, anoo layga reebayo oo layleeyahay war sidaa fudud xoolahaaga ha ku bixinin. laakiin waan aqaanay bay tidhi. imisaa taqaanaan oo aad garasho wax ku siiseen, dhaliyo wax ku siiseen oo idin dhacay? way badan yihiin. waan siiyey gabadhii, way baxday. 2 dukaan oo ay lahayd
ayaa furayaashoodii waa 70,000 taqriiban oo dollar baa mid walba 4 nin bay ka gaday 4 qof waa dukaankiiba 4 qof dukaamo 70 joogay konton ku bixisay qof walba ka kaluu ka qarsaday wuxuu yiri wallahi waaba fudeedba yaan laga ogaanin kistum buu jeebka ugu shubay meel 70,000 iyo dhowr haddii ka waran 50,000 lagu yiraahdo markiiba 50,000 baa gabadhii loo qori waa halkii dukaan 4 qof waqtiyo kala duwan iyagoonan is ogeyn bay ka gaday 8 ruux bay ka gaday lacagteedii bay shubatay islaan kale intaasay ka qaaday wadankii way ka carartay waa la raadiyay adugu meel aanan loo geli karin oo dhulka ay Soomaaliya ayay gashay sanooyin baa ka soo wareegay war imisaad noolaanaysaa haddii adduun oo dhan lagu siiyo oo aad dhacdid war imisaad noolaan 5 sano kama soo wareegin 4 bilood bay sakaraad ahayd waxay tiri ma aanan ogeyn hadda la ii soo sheegay geerideedii oo 4 biloodna ay sakaraad ahayd way dhimatay sheekh gabadhii xoolahaygii waa 2,200,000 maxaan sameeyaa wax kama aanay qoranin cidna markhaati uma aanay yeelan loo yari wax ma aanay qabsanin ilaahay baa ku dhaariyay imisaad dhulal gadataan saykamaaw meeshaan Kitengele balaayo hareeraha Nairobi imisaad dhulal ka gadataan oo mukhallisiin aan ilaahay ka baqaynin oo calooshoodu u shaqaystayaal daalimiin mujrimiin imisaad xoola ka gadataan oo annaga wax walba idin soo dhamaynayna dhulku waa xalaal idinkoona loo yara qabsan waraaqa dawlad xafiis dawladeed markhaatiyaal samaysanin imisaad malaayiin ku bixiseen imisaad habeenadii guryihiina ku ooysaan war maxaa wax loo hubsan laayahay maxaa sharciga loo raacay laayahay haddii aayadda ugu dheer qur'aanka suuratul baqara waa haddii aad dhul gadanaysid haddaad wax un dayn qaadanaysid wax dayminaysid waa aayadda ugu dheer war wax kala qorta oo markhaati samaysta haddaydan samaysan warahan iyo wax dhigta meesha deposit dhiga haddii kale ilaahay tala saarta war imisaa layna waaniyey haddana waa la ooynayaa calaa ayi xaal dhacdadan dhacitaanka way soo noqnoqotaa dadkii wax dhacay sidaasay u dhimanayaan imisaad ogsoon tihiin oo maanta dhulka ka hoosaysa malaayiin qaatay guryo xaaraan ku dhistay oo maantana aanan calfanin habeenna aan guryahoodii seexan xoolahoodii habeenna aanan ka dhargin ku dhexledin imisa war waa la dhimanayaa galabta waad nooshihiin inta joogta masaajidkan allaha barakeeye iyo inta meedhiyaha iga maqlaysa warkaygu gaari doono innaka mayitun wa innahum mayituun allah dhahay xabiibkiisii baa lagu dhahayaa salawaatullahi wasalaamu calayh waad dhiman dadka kalena way dhimanayaan warkaagaa la dhaco waad dhiman kuwa la dhaco waad dhimanaysaan kuwa la dhacayna way dhiman kan wax dhacayna wuu dhiman daalimka wuu dhiman madluumkana wuu dhiman xaggee la tegayaa aakhiro dardaarankii ugu dambeeyey xabiibkeena maanta ina siinaya xadiis saxiixa bukhaari warinayo raximahullah wuxuu leeyahay dhegihiina fura qalbiyadiina fura yaan halkan looga kicin ciddii mukhallas ama wax kala gadatay ama wax dhacay ama gardarooday xataa cirdi iyo cay iyo af lagaado ciddii walaalkii xumaysay af iyo adinow dhegaysa xadiiskan wuu ku anfacayaaye meeshan ayaan looga kicin xabiibkan wuxuu leeyahay sala allahu calayhi wasalam man kaanat cindahu madlamatun liakhiihi min cirdihi aw min shayin falyataxallalhu minhu alyawm qabla an laa yakuuna diinaarun walaa dirham ilaa aakhiri alxadiis qofkii walaalkii madlamo maanta ka hayow may maqashaan qofkii walaalkii madlamo ka hayow xoolo ka sitow min cirdihi aw min shay wax uun ama cirdigiisa cay aflagaado xan isku dir wax uun war qofkii walaalkii af iyo adin midun ku gardaroodow falyataxallalhu minhu alyawm maanta ha ka xalaaloobo waa maalintee waa intaad nooshahay intaad tasarrufka leedahay walaalkaa iyo cafi dhihi kartid caleentii shaaha iyo xaabadii adduunyo aad u celin kartid
انت مانتا walaalka raali gelin kartid qalbigii aad xanuunjisay wanaajin kartid oo aad bogsiin kartid maanta ka xalaaloobo ka hor intaanan xorriyadda laga qaadan aadan dhimanin maanta waa talinaysaa laakiin berri waa lagu talin intaan aakhire la gaarin halkaasoo aan xaaba adduunye iyo calan shaah oolin dirham iyo diinaar ma yaalaan maxaa la samayn dadkii way imanayaan kumanaankii aad dhacday wanaaggaagii xasanaadkaagii ajirkaagii ayaa la qaadanayaa wax qaali baa lagaaga qaadan wax raqiis ah caleen shaaha oo aad adduunka ku dhacdood gudi weyda lagaaga qaadan wax qaali ah salaadaadaana la qaadanaya oo xajkaagii oo soonkaagii oo waxaa la qaadan baarinimadaadii waxaa la qaadan wax walboo khayr oo aad samaysaa lagaa qaadan kadibna haddii uu kaa dhammaado dembigoodii baa korkaaga la saarayaa cadaabaad gelaysaa walciyaadu billaah waxaan aad ugu farxay gabadha markay tiri intaan ku dhiirigeliyey inay cafiso maadaama ay dhimatay waxay tiri wallaahi waan cafiyey waan murugaysnaa bay tiri qalbigaa ii oolalayey laakiin qalbigaad ii qaboojisay bay tiri waan cafiyey aad baan u faraxsanahay sheekh allah kaa farxiyo eeg ilaah baan kugu dhaarshay siday u fiican tahay cafiska الله دهيا فمن عفا وأصلح فأجره على الله قفك إسكعفي ولالك حابا الدون كودن تضبط دوري تضبط عير أياه يوحى كل حجرة قرب كنع إلهي أكتي لقيمة معه إمسان كايسانا إلهي بنكون أرشي الدوية صدر كيسان قرب كنع كليدته قفك عقلي لنصيب آخر كله أياه وحافية أنس عفنه haddii aad imaqlaysaan haddii uu jiro qof uun walaalkii ku gardarrooday oo maanta laabta wax ugu haya waana ogahay masjidkan in badan inay wax isu hayaane waxaan rabaa in aad cafisid walaalkaa haddaad xoolo un sidatidna u celi ma garanaysid wakhtigaad dhimanaysid waad sakaraadaysaa addulmu dulumaatun yowma alqiyaama layidhi halkaa wallaahi ilinkaas maanta keenna ka baxaya isagoo nabada wallaahi inaanu garanayn midkeenna garan maayo ka nabadda ku baxaya maanta waa la dhimanayaa wadnaha ku istaagi kara intaasoo ruuxa masaajidada ku dhintay maanta haddaad wax uun lagu haysto iska celi caawa gabalkay aanu kuu dhicin haddii adiga aad wax uun leedahayna walaalka uu ku dhacay in nool in badan iska cafi cafiskaasi waa cizi وعفسك وشرف حبيبك الله صلى الله عليه وسلم وما زاد الله عبدا بعفو إلا عزا ولا الكي حابا الدنيا وعفيه ومزيادي يا الله وحن عزي شرف كاهين إلهي وحن كبر يا عزقين يا الله ينسو عليه كويس عفيه ولا الله ينغياله كو مظلمة اسكعلي تاري من الله ينغياله ولا الله إسنعين إلهي وحن كبر يا نحن مصلحة الله ديغو انت دمتي مظلمة ودمتين إلهي وحن كبر يا الله ونحرسته قولنا ويعفيسي ولا شد ويعفيسي كو كلاي مغليا هل كان لو دعي إيميل والبا إلهي وحن كبر يا إذن كان الله إذن عفية اسك عفية قولنا مسكين تيمانتا نغاهو سيسا اسك عفية oo wax walba qof walba oo dhintay u cafiya cafisku waa ciziye sharaf ay noo noqotay dhaqan aan ka dhiganno astawdicukum allah alladhi la tadiicu wadaa'icuhu wasalaamu calaykum wa rahmatullahi wa barakaatuh